السلام عليكم dhegeyste Ramadan Mubarak kusoo dhawow janalka Tab ee ka hadla arrimaha ganacsiga iyo tiknoolajiyadda mar kale iyo muuqaal cusub sidee la isugu xiraa WhatsApp webka computerkaaga iyo kan taleefankaaga waa jawaabta dad badan oo raba inay kombiyuutarradooda ku shubtaan WhatsApp haddaba isku xirka labada WhatsApp ee computerkaaga iyo kan taleefankaaga waxay kuu sahlaysaa inaad si toos ah fariimo ugu dirtid taleefanada asxaabtaada ama macaamiishaada kala duwan adiga oo isticmaalaya computerkaaga waxa kaliya aad u baahan tahay waa WhatsApp-ka taleefankaaga iyo kan computerkaaga inay ku xiran yihiin internet kadibna aad qaadid tilaabooyinka soo socda fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe dheh oo gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena cusub daawada asxaabtaadana la wadaag fikirkaagana noogu reeb qaybta hoose taab kala dasho wax walba oo aad tabanayso ee dhanka ganacsiga iyo tiknoolajiyada ah markaad taagan tahay shaashada computerkaaga waxaad soo kacsataa browserka kuugu jiro computerka oo waxaad tagtaa halka wax lagu qoro oo waxaadna ku qortaa web.whatsapp.com kadibna enter leh oo wuxuuna soo qaadi doonaa halkan soo socota dhinaca midigta waxaa kaaga soo bixi doona QR code bidixdana Ingiriis ayaa ka muuqda balaa qaab kala aragno halkan lagu imaan karo calaamada balaaska ku dhufo oo halkan idan waxa ku qortaa whatsapp.com data web ayaan ka hormarinaynay laakiin markan whatsapp.com caadi iska qor wuxuuna noo qaadi doonaa website-ka shirkadda WhatsApp waa kana WhatsApp shirkadda website-keeda ayuuna keenay qaybo kala duwan uu leeyahay laakiin aniga maxaan ka dooranaynaa WhatsApp web oo WhatsApp web markaan ku dhufano wuxuu nagu celi doonaa isla meeshii hadda waa kana halkaan ka soo laabanay web.whatsapp.com ayaan ku soo galnay halkaan ay imaanay waana ka laabanay si kale aan ku soo gali karnaa ayaan raadinay dhinacaan waxaa kaaga muuqda QR code oo midigta ah bidixdana waxaa kaaga muuqda Ingiriiskaas wuxuu tilmaamayaa qofka luqadda yaqaana inuu isla markaas WhatsApp-ka mobilka iyo kan computerka uu isku xirto waa kana wuxuuna tilmaamayaa qaabkii la isugu xiri lahaa labada WhatsApp la isu tusi lahaa balan mobilka soo kicina markaan saan u aragno qaabka labadooda la isugu xirayo markaan waa kana oo waxaa hubaa in mobilkaaga WhatsApp ugu jiro oo WhatsApp-kana aad soo kicisid oo markaad soo kicisid waxaa arki doontaa soo kici oo halka ugu sareysa waxaa ka muuqda 3 dhibcood waa kana 3 WhatsApp web ayuu leeyahay kan computerka wuxuu leeyahay WhatsApp web labadaas la rabaa in la istuso is arkaan oo ku dhufo oo markaad ku dhufato QR code-ka oo mobilka soo bixi doona waxaan la tusi doonaa kan computerka waxaana la isu tusi doonaa sida soo socota ay labadooda soo arkaya suna akhri doonaan waa kana WhatsApp web kadibna mobilka kamaradiisa ku aadinay kan computerka QR code-ka soo akhriyo adigoo mar kale ku celi telefoonka nooca rabta isticmaal telefoonada dhamaantood waa isku wada mid waa lagu wada xiri karaa isla markaas hadda wuxuu tilmaamayaa inuu computerka kusoo xirmaayo oo ku soo xirmay oo hadda WhatsApp-ka mobilkaaga iyo waxa isku xiran kan computerka oo mobilka naga diji balan aragna in hal qof fariin u dirno qofka ugu horeeya ayaan markaan waxaan isku dayaynaa inaan fariin u dirno ku dhufo oo markaan ku dhufano wuxuu nagi doonaa halkii fariinta lagu qoraayay mobilka caadiga ah oo la mid yahay halkaan ayaan waxa ugu qoraynaa assalaamu calaykum fariin caadi ah sawir aan diri karnaa waxaan isku dayaynaa markaan inaan sawir u dirno meesha photo aan ku qoray videos ka fur oo meel kamid ah sawiradaada cod wax walba ayaa diri kartaa inaan sawir dirto kaliya muhiim ah laakiin waxa aad rabto markaas qofka inaad u dirtaa u diri kartaa sawir meel kamid ah laptop-kan soo qaadanaynaa qofkaas macaamiisha noogu dirayaan u direynaa ama documenti aan u diri kartaa cod aan u diri kartaa sida mobilka loo isticmaalayo unbaa loo isticmaali karaa WhatsApp-ka markii computerka looga jiro waa kana documenti laftirkiisa aan u dirno oo mar haddaad document u dirtay oo sawirna u dirtay waa kana meel kamid ah computerka soo qaad waa kan qof kan kale new sound ay ku qorantaa loogu dhufo kadibna open iska soo dhig oo okay oo hadda sawir iyo fariin iska caadi intaba waa dirnay waxyaabo kale badan waa sii samayn kartaa oo hadaabtana waa ka bixi kartaa oo waa iska xiri kartaa mobilkaaga bisa isticmaali kartaa profile-kaaga sii fiirin kartaa wuxuu leeyahay qaybo kala duwanaayo oo mobilka uu lahaay log out leedahay waa ka bixi oo marka ka baxdo wuxuu geenayaa meesha hadda QR code-ka aan ka soo galno kala tusaya oo banaanka ugu celinaya ka baxnay balan telefoonka aan fiirino
wixii aan dirnay oo telefoonkan ka dirnay iyo wixii computerkan ka dirnay misleeyin ha waa kana mobilka xogtii ayaa ka muuqata isagana laana WhatsApp waa isku halka hab kaliya computerka baa lagu xiray iyadoo browser la isticmaalayo waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka baratay farsamadan kuna anfici doonto sidaan si la midana u isticmaali doonto waana mahadsan tahay dhageysigaaga iyo muuqaalada dambana la socod wanaagsan